subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba warar kala duwan ayaa laga helayaa dagaal xalay al-shabaab iyo ciidamada militariga Soomaaliya ku dhexmaray deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose ciidanka Soomaaliland ayaa xalay qof shacab waxay ku dileen bartamaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Jabuuti maanta waxay kulan yeelan doonaan xarunta dalka Jabuuti ee caasimada wadanka Jabuuti Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in magaalada Hargeysa lagu qaban doono shir heer caalami ah oo looga hadlayo heerka isgaarsiinta Soomaaliland ay ka gaartay caalamka madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa si cad uga hor yimid guddiga doorashooyinka maamulka Puntland oo dhawaan magacaabay madaxweynaha maamulkaasi qaar ka mid ah ergada ka qayb galaysa shirka dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug oo xalay kulan la qaatay wasiirka amniga Soomaaliya ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa saaka gaaray deegaan ay shaqaaqa ku dhex martay wadayaasha gawaarida ka dhex shaqeysa magaalada Hargeysa akhbaaraadka dibadda warbaahinta Simba subaxnimadkan idiin haysana waxaa ka mid ah boqolaal ruux oo ku dhintay bam ku qarxay bartamaha caasimada dalka Afghanistan ee Kabul markale subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku asteysan tahay 19 bisha 8 ee Agoosto sanada 2019 intii aad maqasheen dhageystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba imikana ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu kulan la qaato madaxweynaha dalka Jabuuti sida warkan ku faahfaahinayo Yaxya Ciise Xuseen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay gaaray magaalada Jabuuti ee caasimada dalka Jabuuti ayaa waxa ay maanta la filayaa inay kulan la qaataan madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele labada madaxweyne waxa ay ka wada hadli doonaan xaaladda labada dal iyo sidoo kale xiriirka u dhaxeeya labada dal dalka Jabuuti oo Soomaaliya muddo dheer ka soo caawinayay dhinacyo fara badan ayaa waxa madaxweynaha Soomaaliya casuumaad 2 maalin oo ka helay waxa uu shalay ugu ambabaxay magaalada Jabuuti iyadoona lagu wado in labada madaxweyne ay yeeshaan kulamo ay kaga hadlayaan xaaladaha labada dal dalka Jabuuti waxa uu ka mid yahay dalalka ciidamadoodu ay ku sugan yihiin Soomaaliya isla markaana ay qaybta ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya ka socda ee AMISOM waxayna ciidamada Jabuuti ku sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobolka Hiiraan halkaas oo ay ka wadaan howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM labada madaxweyne kulankooda waxa ka hadlay labada madaxweyne waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan waxa warbaahinta u faahfaahiyay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed mustafarkan waxa diiradda lagu saari doonaa xiriirka walaaltinimo iyo iskaashi iyo saaxiibtinimo iyo dhiig wadaag iyo hiilka joogtada ee walaalaha Jabuuti ay noo muujiyaan sanadihii u dambeeyay inaan sii dardargelino sii xoojino inta uu ugu muhiimsan madaxweynuhuna madaxweyne Farmaajo wuxuu berri wada hadallo dhinacyo badan taabanaya la yeelan doonaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele muhiimadda ay noo leedahay inaan Jabuuti imaano inaan ku soo noqono waa dal walaala waa dal hiil ah haddana lafdhabar u ah amniga Soomaaliya oo Jabuuti waxay ka tirsan tahay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay u ambabaxay dalka Jabuuti halkaas oo uu soo joogi doono 2 maalmood oo uu casuumaad ka helay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele waa mahadsantahay Yaxye ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa al-shabaab ayaa xalay dagaal culus waxa uu ku dhexmaray deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose dagaalkan ayaa waxa la sheegay inay soo qaadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kuwaas oo beegsaday saldhig ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose dagaal qaatay 2 saacadood oo toos ayaa la sheegay in labada dhinac uu dhexmaray waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida idaacadda Simba waxa xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose ciidamada shabaabka dagaal kala galay ayaa waxay yihiin kuwa danab oo maalmahan howlgal la qorsheysan ka waday qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose deegaanka lagu dagaalamayna dhawaan ayay ciidamada danab kala wareegeen gacan ku haynta shabaabka qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada taageera shabaabka waxa ay ku sheegeen
in ay dagaalkaasi ku dileen in ka badan 30 askari oo ka tirsan ciidamada danab halka warbaahinta dowladuna ay daabacday in shabaab laga dilay 20 askari oo weerarka soo qaaday laakiinse labada dhinac dad ka madax bannaan oo la hadalnaya waxay noo sheegeen inuu jiro khasaare labada dhinacba soo gaaray walow aan si rasmi ah loo cadeyn karin xaaladda ayaa waxay saaka tahay mid degan waxaana marmarka qaar la maqlayaa xabado goosgoos ah oo labada dhinac ay iswadaarsanayaan shabaabkii dullaanka soo qaaday ayaa wararka helina waxay sheegayaan inay hadda ku sugan yihiin deegaan u dhow deegaanka lagu magacaabo Shaam oo Dhiigle Bariira iyo Shaam waxaa dhowaan laga saaray al-shabaab waxaana hadda maamulaya ciidamada sida gaarka oo tababaran ee danab waxaan ka hadlayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland waxa uu ka hor yimid qoraal dhawaan ka soo baxay madaxweynaha Puntland kaas oo lagu magacaabay guddiga doorashooyinka maamulka Puntland sida warkan ku faahfaahinayo Cabdisataar Xaaji madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa si cad uga hor yimid guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee uu magacaabay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku-xigeenka ayaa qoraal ka soo baxay ku sheegay inaan wax wada tashi ah lagala yeelan magacaabista guddigan qoraal ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka ayaa u qornaa sida tan ku socota gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Garowe og dariiqanka guud ee dowladda Puntland Garowe aliyaha guud ee dowladda Puntland Garowe oo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda Puntland Garowe ujeedo cadeyn magacaabis sharci darro anigoo tix raacaya xeer madaxweyne LR 58 ee ku taariikhaysnaa 17 Agosto 2019 ujeedadiisu ahayd magacaabista guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka dowladda Puntland markaan arkay qodobka 8aad farqadiisa 5aad oo u dhigan sida tan madaxweynuhu isagoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka wuxuu awood u leeyahay inuu magacaabo ama xilka ka qaado xubnaha golaha wasiirada madaxda hay'adda madaxa bannaan iyo madaxda kale ee dastuurka ama shuruucda kale ogol yihiin qodobka 8aad farqadiisa 2aad oo waafaqsan qodobka hore ee dastuurka dowladda Puntland markaan arkay lifaaqa koowaad ee dastuurka kaasoo tilmaamaya dhismaha guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka tiradoodu iyo sida magacaabistoodu ku ansaxayso markaan arkay in madaxweynuhu kala tashado madaxweyne ku-xigeenka magacaabista 5 xubnood inay tahay waajib dastuuri ah haddaba waxaan qoraalkan ku cadeynayaa in aanu madaxweynaha dowladda Puntland wax wada tashi ah igala yeelan magacaabista guddigan sida ku cad xeerkiisa maadaama aanu madaxweynuhu igala tashan magacaabista waxa ka hor imaanaya qodobada dastuurka ah ee kor ku xusan magacaabista 9 xubnood ee madaxweynuhu soo saaray waxay khilaafsan tahay lifaaqa koowaad ee dastuurka oo tilmaamaya tirada xubnaha iyo sida loo kala magacaabo taasoo cadeynaysa in aanu xaq u lahayn madaxweynaha kaliya magacaabista 9 xubnood sidaas darteed aniga cuskanaya qodobka 138aad farqadiisa 2aad oo u dhigan sidan xeer hoosaad iyo wareegto kasta oo fulineed oo ka soo horjeeda shariicada islaamka iyo dastuurka Puntland oo waxba kama jiraan waxaan cadeynayaa in xeerkan yahay waxba kama jiraan maadaama uu khilaafsan yahay dastuurka dowladda Puntland iyo lifaaqa koowaad ee dhismaha guddigan warqadan ka soo baxday madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa imaanaysa iyadoo 17 bishii Agosto madaxweynaha maamulka Puntland uu magacaabay guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka maamulka Puntland magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland waxaa la filayaa in bisha 9aad ee soo aadan lagu qabto shir heer caalami ah oo looga hadlayo horumarka Somaliland ay ka sameysay dhanka isgaarsiinta wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Somaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in shirkan ay soo qaban qaabisay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Somaliland isla markaana ay ku marti qaaday wadamo dhowr ah oo ku yaala qaaradda tan Afrika iyo sidoo kale hay'adaha Somaliland kala shaqeeya dhanka isgaarsiinta waxa uu sheegay in shirkan uu socon doono muddo kooban isla markaana diiradda lagu saari doono casrigan jira iyo isgaarsiinta sida loo jaanqaado iyo sidoo kale deegaanada Somaliland horumarka ay ka sameeyeen habka isgaarsiinta sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo cid walba oo khibrad u leh arrimaha isgaarsiinta in shirkan ay soo xaadiraan isagoo sheegay in shirkan uu yahay mid muhiimad u leh Somaliland wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland iyo wasaaradda maaliyadda ay ku dhawaaqayaan in bisha 9aad
toddobadeeda iyo sideedeeda Somaliland lagu qaban doono shir ku saabsan IT-da ama technology-ga casriga ah shirkaas oo la yiraahdo ICT for Development and Empowering Success. Shirka waxa loogu talagalay in lagaga hadlo oo laga doodo oo dhinacyada khuseeyaan ama dhinacyada xiriirka la technology-gu ay isugu yimaadaan dhinacyadaas oo ah dawladda iyo shirkadaha iyo hay'adaha fidiya tacliinta sida jaamacadaha iyo maaragtay hay'adaha kale college-yada ujeedada laga leeyahay shirkani marka koowaad waa in laga soo saaro waxa la yiraahdo National ICT Policy siyaasad qaran oo Somaliland ay ka leedahay ICT-da sarko qabtaan imka technology-gu waxa gashay qayb dhinac kasta nolosha marka in laga yeesho siyaasad iyo aragti waxa kale oo isna jirta aan ugu talagalnay shirkan in lagu horumariyo suuqa technology-ga oo meelo badan gelaya dawladuna ay u fududeyso in ka ganacsiga technology-gu noqdo mid soo jiita dadka jidada saddexaad ka leena waxa weeye in waxbarashada iyo xirfadda technology-ga iyadana kor loo qaado sidaa ogeed waxaan ugu baaqaynaa cid kastoo danaynaysa technology-gu ka soo qayb galaan waxa u furan in ay soo bandhigi karaan haday sameeyeen cilmi baadhis website baa la sameeyay isaga laftigiisu kale ay qolada media-ka ka tuso doonaan halkan oo loogu talagalay in laga register gareeyo topigyada gaarka iyo waxyaabaha lagu ka fargareyn doonana wasaaraddu way soo bandhigi doontaa maanta waxaan ugu talagalnay dadweynaha reer Somaliland dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba inaanu ku wargelino in bisha 7deeda oo maalin Sabtiga iyo maalin Axada bisha 7deeda iyo 8deeda bisha 9aad in shirkaas uu dhacayo dhammaan laga soo qayb galo aragtida ugu dambeysay wasaaraddu aaminsan tahay technology-gu in Somaliland noqoto goob lagu yaqaan in technology-ga lagu soo hagaago shirkankii ka horeeyay ayaa magaalada Hargeysa waxa uu ka dhacay September 15keedii sanadkii 2017 waxaana shirkaasi ka soo qayb galay hay'ado caalami ah iyo sidoo kale dawladaha dariska ah Somaliland sida Djibouti, Kenya iyo sidoo kale wadamo dhowr ah oo lagu casuumay shirkaasi. isla wararka Somaliland ciidamada Somaliland ayaa saaka waxay gaareen deegaan ay shaqaaqa ku dhex martay wadayaasha gawaarida ka dhex shaqeysa magaalada Hargeysa. hal ruux ayaa ku dhintay 3 kalena way ku dhaawacmeen shaqaaqa xalay ka dhacday deegaan hoos yimaada magaalada Hargeysa oo lagu magacaabo Lajri isla markaana ay gacan ku hadal oo ku dhex maray wadayaasha gawaarida basaska loo yaqaan ee ka dhex shaqeeya magaalada Hargeysa iyo kuwa iska kala goosha waa kuwan qaarkood oo sheegaya sababta keentay isku dhacan waxaan ka hadlayaa shaqaaqada ka taagan xaafadan awaadan waxaa isku haysta basaskii yaryaraa ee caasiga ahaa iyo basaskii waaweynaa ee kasoo bixi jiray istaanka Cabaaye run ahaantii marka xaqiiqada laga hadlo basaskan Cabaaye ka soo baxaa waxa weeyaan basas in badan xaafadda u shaqeynayay isla markaana de mudoodii xaafadda la bilaabay dhismaheeda ama degitaankeeda ilaa maalinkan maanta de 20 sanadood muddo aba ka soo wareegtay maadaama ay 20 sanadood basaskaasi xaafadda ka shaqeynayeen daanagu waxaan u adeegsanay inay basaska xaafadda yihiin oo yacni dee qolo waliba xaafad bay leedahay qolo waliba meel bay u baxdaa qolo waliba meel bay istaagtaa istaan bay leedahay xaqiiqada marka loo dhaadhaco waxa weeyaan difaac iyo dagaal iyo wax walba uu galayaa sida imka ay wariyaashu soo xaqiijiyeen waxa muuqanaysa in dagaal aan yarayn uu meesha ka socdo dee marka dad la isugu soo dhiibo rag weeyaan oo nin waliba dee uu istifaacayo ninka hoygiisa loogu yimiday uu dagaalamaya de waxaan u arkaa in maanta shaqaaqada dhacday inuu yarin adigu mas'uul ka tahay annagu halkan dagaal fara badan baa ka dhacay ilaa shalay toona xamaasadu way socotay haddii socotayna baabuur badan iyo dad badan bada ilaahay inba sadaqadii waxaan ku wari bisinka u qabtay mana doonayna baabuurtan gaagaaban anagu dhaadheerkii baan doonayna waayo annaga kuwaasaan anfacaya ma rabna kuwa kale dawladuna inay been sheegnay inay kala hagaajiso ayaa raggan isdilaaya meesha shaqaaqa weyn baa ka taagan dhibaato weyn baa ka taagan basaskii Cabaaye iyo basaskii caasiga fooda la isku galiyay taas oo ka mas'uul tahay dawladda hoose dhibaatadii geysanayso iyo waxyeeladeeda iyo waxtarkeedu waxyeeladeeda badan sababtoo ah halkan wadadan waxaa xaq u leh basaska waaweyn muddo dheer bay ka soo shaqeynayeen waddo ay samaysteen oo jabsadeen oo ayagoo dhagax ku jiro wax walba ku jiro ilaa lugiyo lacag ay samaysteen ayay dawladda hoose mid kale ka soo dabagelinaysa taasina qalad weeyaan markaa meesha dhibaato weyn baa ka dhacday taana waxa ka mas'uula maayirka sheegaya in rabshada ay bilaabantay anagu baabuurtii waaweyneed baanu nahay
20 sano oo halka weli waxaad maqlaysaan dhegaystayaal warka subaxnimo ee raadiyaha Simba markana haddii aan eegno qaar ka mid ah ergada ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug ayaa xalay waxay kulan la qaateen wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kulanka waxaa diiradda lagu saaray sidii uu qabsoomi lahaa shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo aad mooday inuu khilaaf weli ka taagan yahay maadaama qaar ka mid ah beelaha aysan soo xaadirin shirkaasi waraaheleen ayaa waxay sheegayaan in wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya uu ballan qaaday ergada ka qaybgalaysa shirka inay si nabadgelyo ah ku dhameysan doonaan maadaama habeen hore ay shaqaaqa ka dhacday xarunta uu ka furmo doono shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug isla markaana ciidamo halkaas ku wada sugan ay isku mandhaafeen cidda sugaysa amniga shirkaasi ciidamada nabadgelyada iyo kuwa milatariga ayaa la sheegay in gacan ka hadal halkaas uu ku dhex maray oo sababtay khasaare dhimasho dhaawac leh oo ciidamada soo kala gaaray xalay wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale wuxuu kulan la qaatay saraakiisha horboodaysa ciidamadii ku wada dagaalamay magaalada Dhuusamareeb isagoo uga digay in shaqaaqa tan la mid ah ay soo celiyaan sharcigana la horgeyn doono waxaa sidoo kale ergada uu ballan qaaday in shirka si nabad ah ku dhamaan doono wuxuuna sheegay isla markaana ugu baaqay kuwa ka maqan shirkan waa ergada inay si degdeg ah u soo gaaraan Dhuusamareeb si uu u furmo shirkan isla markaana natiijo looga gaaro halka warkaasi kala socotaan oo idaacada Simba akhbaaraadka dibadda hadaan eegno bam wadada dhinaceeda la dhigay oo ayaa waxa uu ku qarxay waqooyiga dalka Afghanistan waxaana uu dilay 12 qof oo shacab ah sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Maxamed Yuusuf oo ah gudoomiyaha degmada Talta Albaba ee gobolka Baqla ayaa sheegay in qaraxan uu haleelay gaari bas ah isla markaana ay saarnaayeen dad shacab oo marayay xaafadda lagu magacaabo Barbar waxa uuna qaraxu ku eedeeyay kooxda Taliban gudoomiyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 7 haween ah iyo 2 caruur ah ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay qaraxaasi ma jirto ilaa hadda koox sheegatay mas'uuliyadda weerarkan balse qarax kan la mid ah oo la dhigay hool ay ka dhacaysay xaflad aroos oo ku taala bartamaha caasimada dalka Afghanistan ee Kabul waxaa ku dhintay 22 ruux 180 kalena way ku dhaawacmeen mas'uuliyiinta dalka Afghanistan qaraxyada ka dhacaya dalkaasi dhowrkii waxay ugu ridayaan ururka Taliban walow ururku uu iska fogeeyay mas'uuliyadaas inuu isagu ka dambeeyay guud ahaan dhageystayaal warkii subaxnimo waad kala socoteen idaacada Simba ee magaalada Muqdisho waa naga inta warkayga cidda uu seegay mar kale waxay ka heli karaan simbanews.com nabadgelyo أهلا وسهلا